salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu wacano wanaagsan daawadayaal kusoo dhowaada tabinteena wararka soomaalida iyo caalamka kuwoodii ugu dambeeyey ee xasaasiga ah waxaad kala socotaan haga miidiya qodobada ugu waaweyn ee warkeena aan idinkugu soo gudbin doono ayaa waxaa ka mid a weeraro culus oo al-shabaab ay ka fuliyeen muqdisho iyo deegaanka af urur oo puntland ka tirsan iyo faahfaahino dheeraad ah oo laga helayo khasaare halkaasi ka dhashay nisa oo soo saartay digniin culus oo la xiriirta in qaybo ka mida garoonka al-shabaab ay qaraxyo la damacsan yihiin ra-iisul wasaare Roble oo qabanaya kulan culus oo jawaab u ah kii farmaajo uu la qaatay saraakiil ka tirsan ciidanka xoogga dalka Sambaloosho oo wajahaya mar kale culays kale oo uga imaanaya dhinaca villa Soomaaliya iyo kursiga uu u tartamayay oo musharax kale uu isku soo taagay sidoo kalena lafta gareen wuxuu sheegay in ay ka go'an tahay koonfur galbeed inay noqoto maamulka ugu sareeya ee hogaamin doona Soomaaliya haddii ay tahay markii ugu horeyso channelkeena aad soo booqatay nagu soo biir subscribe dhe gambaleelka furo like share iyo qaybta commentiga in fikirkaaga aad inoogu reebto hanaga ilaabin horaan haddii aad nala joogtay waad ku mahadsantahay la joogitaankaaga like dheh muuqaalka garuubyada whatsappka iyo facebooka inaad kusii sheergarayso hanaga ilaabin waa maalinimo axadda taariikhduna ay ku beegan tahay 27 bisha maarso sanadka 2022 waxaan u gudagelaynaa qaybaha hore ee wararkeena aynu ka hormarnay al-shabaab ayaa weeraro ka fuliyey muqdisho iyo deegaanka af urur oo ka tirsan maamulka puntland iyadoo khasaare halkaas laga soo warinayo xooga ka tirsan al-shabaab ayaa xalay weerar gaadma ah ku qaaday ciidamadii ugandha ee amisom qaybta ka ah ee deegaanka xero maslax oo ku taala deegaanka suuqa xoolaha ee degmada hiliwaa weerarkaasi la eegtay waxaana weerarka xigay dagaal toosa oo halkaasi ka qarxay wararka ayaa sheegaya in weerarka uu ku bilowday qoriga garabka laga rido ee sabanka loo yaqaano kaasi oo lagu dhuftay iridda laga galo xero maslax kadibna waxaa halkaas ka qarxay dagaal toos ah oo saacad socday labada dhinac ayaa isweydaarsaday inta dagaalka uu socday hub aad u culculus taas oo keentay in dadka deegaanka ay dareemaan cabsi aad u xoogan sidoo kale mar dambe dagaalka waxaa ku biray ciidamada booliiska haramcad ee fariisinka ku leh xaafadda suuqa xoolaha taasi oo keentay in dagaalka uu sii laba qarxo ilaa iyo haatan dadka deegaanka waxay sheegeen inuu jiro khasaare kala duwan balse ma caddeen inta uu la egyahay khasaarahaasi dagaalyahanadii weerarka soo qaaday oo dhabarjibin kala kulmay ciidamada haramcad ayaa lagu soo waramayaa in goobta ay isaga carareen waxaana kadib howlgallo kooban sameeyey ciidamada amisom iyo kuwa dowladda federaalk Soomaaliya xaaladda ayaa degan waxaana weerarkan uu noqonayaa kii labaad oo toddobaadyo gudahood ay al-shabaab ka fuliyaan gudaha caasimadda muqdisho maalmo ka hor ayay fuliyeen sidoo kale al-shabaab weerar si weyn loo soo qorsheeyey oo lagu qaaday qaybo ka mid ah xalane iyadoona arrintan loo arko inay tahay mid fududeynteeda qayb ay ka qaadanayaan mas-uuliyiin ka tirsan dowladda dhinaca kale al-shabaab ayaa weerar culus ku qaaday waa berigii hore ee saakay deegaanka af urur oo ay fariisimo ku lahaayeen ciidamo ka tirsan kuwa puntland faahfaahino dheeraada ayaa waxaa laga helayaa weerar culus oo saakay dagaalyahano ka tirsan al-shabaab ay ku qaadeen saldhig ciidamada ammaanka puntland ay ku leeyihiin deegaanka af urur oo gobolka bari dhaca weerarka ayaa ku bilowday madaafiic waxaana xigay iskorimaad toosa oo u dhexeeyey labada dhinac ila deegaanka ah ayaa inoo sheegay in madaafiicda qaar ay ku dhaceen gudaha saldhigga iyo hareerihiisa waxaana ay shaaciyeen in aysan caddayn karin khasaaraha rasmiga ah ee halkaasi ka jira dhanka kale ma jiro weli wax hadal ah oo ka soo baxay saraakiisha ammaanka puntland oo ku aadan deegaankaasi iyo weliba khasaaraha rasmiga ah ee labada dhinac soo kala gaaray dagaalka ka qarxay al-shabaab ayaa dhankeeda guulo ka sheegatay waxaana ay shaaciyeen in ay gubeen xerada uu weerarka ka dhacay ayna dishay dhowr askari sida hadalka ay u dhigeen xaaladda ayaa deganaansho ay ka muuqataa inkastoo aan la ogaan karin sida ay wax u dhaceen iyo khasaaraha rasmiga ah ee xilligan halkaasi ka jira iyadoona dad badan ay walaac ka muujiyeen weeraradan sii xoogeysanaya ee kooxda al-shabaab iyo waxa xalka u noqon kara hay-adda Somali Community Foundation oo ka mid ah hay-adaha samafalka ee ka howlgala gudaha dalka Soomaaliya ayaa waxa ay bilaabaysaa barnaamijkii khayriga ahaa ee sanad walba bisha Ramadaan ay sameyn jirtay isla markaana lagu afurinayay dadka masaakiinta ah ee aan awoodin in afurka ay sameystaan waa sanadkii shanaad oo hay-adda Somali Community Foundation ay khayrkan faafinayso isla markaana dadka masaakiinta ay ugu adeegayso iyadoo muslimiinta meel kasta oo ay joogaan
loogu baaqay in wax allaale wixii ay awoodaan ay ku soo hagaajiyaan akoonnada shaashadda idinkaga muuqda. xiriiryaha guud ee hay-adda Somali Community Foundation Xaaji Mooya Shamcuun oo la soo xiriiray warbaahinta qaybahooda kala duwan ayaa waxa uu sheegay in aad iyo aad uu uga rajeynayo muxsiniinta Soomaaliyeed inay ka soo jawaabaan dalabka la xiriira in kaalin ay ka qaataan afurinta muddada 30 maalmood hadduu eebba ka raali noqdo walaalaha Soomaaliyeed ee tabaalaysan. isagoo sheegay Xaaji Mooya Shamcuun in xilli abaareed lagu jiro dad fara badan ay guryahoodii iyo deegaanadoodii isaga tageen isla markaana meelo kale barakac ay ku yihiin. Somali Community Foundation ay beegsan doonto dadkaasi iyo meelaha ay joogaan isla markaana uu si gaar ahaaneed uga codsanayo muxsiniinta ku sugan gudaha dalka iyo dibadda, ganacsatada, siyaasiyiinta, culimaadudiinka, dhalinyarada, rag iyo dumarba, haweenka inay is-abaabulaan isla markaana ku garabsiiyaan hay-adda Somali Community Foundation sidii ay u xaqiijin lahaayeen in 30kaas maalmood laga farxiyo muslimiinta iyaguna ajir wanaagsan ay ka qaataan. hay-adda Somali Community Foundation ayaa looga bartay in ay si weyn u garab istaagto dadka Soomaaliyeed ee tabarta daran isla markaana bisha Ramadaan ayaa horey waxay uga farxin jirtay muslimiin badan oo Soomaaliyeed iyo dad aan Soomaali ahayn oo qaatay diinta Islaamka kuwaasi oo u baahan in garab istaag xoogan loo muujiyo. NISA waxa ay digniin ka soo saartay in qarax lala damacsan yahay shirkad ka howlgasha gudaha garoonka diyaaradaha Aadan Cadde. xog gaar ah oo la helayo ayaa sheegaysa in kooxda Al-Shabaab ay qorsheeyeen in maalmaha soo socda ama 72 saac gudahood ay beegsato mid ka mid ah gaadiidka shirkadaha gaarka loo leeyahay ee ka howlgala gudaha garoonka, gaar ahaan Sahal ee garoonka diyaaradaha Aadan Cadde dadka u qaada, iyadoona arrintan ay tahay mid digniin culus laga soo saaray. xogta la helay ayaa sheegaysa in Sabtidii shalay ahayd ay Al-Shabaab diyaarisay qarax ismiidaamina, balse xogtu ma sheegayso jinsiyadda qofka fulinaya qaraxa inuu yahay rag ama dumar. qaraxa ayaa bartilmaameedkiisu yahay in lagu beegsado gaari ay leedahay shirkadda Sahal kaas oo daadgureeya shaqaalaha garoonka Aadan Cadde. bartilmaameedka qaraxa ayaa lagu sheegay gaari nooha ah, kadibna waxa ay arrintu muujinaysaa in uu yahay mid nuuciisu caddaan uu yahay. sidoo kale xogta ayaa hay-adaha amnigu ay la socdaan, waxaana shirkadda Sahal la gaarsiiyey fariin digniina, waxaana lagu wargeliyey dhowr talooyin oo ay hay-adda NISA u soo gudbisay si feejignaan dheeraad ah ay u muujiyaan. talooyinka la siiyey shirkadda Sahal waxaa ka mid ah in dadaal xoogan ay u galaan sidii nolol ama geeri loogu qaban lahaa ismiidaamyaha, in baaris lagu sameeyo agagaarka albaabka hore ee garoonka diyaaradaha, in ganacsiga laga joojiyo agagaarka garoonka, in shaqada laga joojiyo gaadiidka daabusha shacabka iyo shaqaalaha dowladda, iyo in hawsha gaariga bartilmaameedka ah la joojiyo. maalmihii u dambeeyey waxaa aad u sii kordhayay walaaca laga qabo in Al-Shabaab ay suuragal tahay inay qaadaan tallaabo kasta oo u fududeynaysa inay waxyeelo gaarsiiyaan isu socodka garoonka diyaaradaha Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho, iyadoona ay arrintan noqonayso mid kale oo halis u gudbin karta guud ahaanba dadka Soomaaliyeed ee dowladnimada jecel. Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble ayaa kulan degdeg ah isaguna sameynaya kadib markii farmaajo uu la kulmay saraakiisha ciidanka xoogga dalka. Ra'iisul Wasaaraha muddada xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Rooble ayaa kulan isugu yeeray taliyayaasha ciidamada amniga dalka maalin kadib markii ay la kulmeen madaxweynaha muddaxileedkiisu dhammaaday Maxamed Cabdulaahi Farmaajo. ilo wareejin lagu kalsoon yahay ayaa warbaahinta u sheegay in Rooble uu xalay fariin u diray dhammaan taliyayaasha uguna baaqay inay isugu yimaadaan kulan maanta ka dhacaya xafiiska. Rooble ayaa marka hore qorshihiisu ahaa in uu la kulmo golaha wasiirada, hase yeeshee markii uu madaxweyne Farmaajo la kulmay taliyayaasha ayuu Rooble bedelay qorshihiisii, isla markaana uu ka dhigay in uu la kulmayo ciidamada. Farmaajo kulankii uu la qaatay saraakiisha ciidamada, mas'uuliyiin ka socday gobolka Banaadir, asluubta iyo nabad sugidda, faahfaahin dheeraad ah oo lagu wada qanco lagama bixin marka laga reebo in la soo bandhigay in madaxweynaha uu kula taliyay in amniga la xoojiyo maadaama doorashooyin lagu guda jiro.
sida lagu sheegay qoraalka ka soo baxay villa Soomaaliya, dadka qaar waxay u arkeen inay tahay qorshe cusub oo madaxweyne Farmaajo uu ugu diyaarinayo saraakiisha isaga u daacadda ah in ay ka shaqeeyaan in doorashada uu boobo. hase haatee kulanka Rooble lama oga waxa uu uga duwnaan doono kulankaasi, iyadoo dadka intooda badan ay leeyihiin Rooble iyo Farmaajo waxba isma dhaamaan oo waa laba nin oo shacabka iminka wax faa'iido aan u haynin, danahooda gaarka ahna ka shaqaynaya. Cabdicasiis Laftagareen ayaa ku dhawaaqay in ay ka go'an tahay in maamulkiisa uu ka dhigo kan hogaaminaya Soomaaliya maadaama xildhibaanada ugu badan ay ka soo baxaan. madaxweynaha maamul goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen oo khudbad sagootina u jeediyey xildhibaanada laga soo doortay maamulkiisa ayaa ka hadlay xaaladda dalka, arrimaha doorashooyinka, ammaanka iyo waxyaabaha la isku hayo. Laftagareen ayaa ugu horeyn soo hadal qaaday doorashada golaha shacabka ee haatan maraysa heer gabagabo, wuxuuna sheegay in ay geliyeen qabsoomidda doorashada dadaal aad u xoog badan. madaxweynaha ayaa sidoo kale sheegay in markii ay arkeen in maamulada kale baarlamaanka ay ku soo dareen saraakiil ay iyaguna soo dirsadeen janano baarlamaanka waxaa ku jira oo maamulada kale markii ay keeneen saraakiil aan anaguna keenay wax la yiraahdo janano. intaas oo dadaal ah markii aan marnay reer Koonfur Galbeed, ujeedadoodu waxay ahayd inaan dib inta isugu noqono oo aanan dhihin waxaas ma qabno, waxaas anaga ma haysano. wax walba oo Soomaali ay haysato waad haysataan, haddii aqoon ay tahay, haddii waayo aragnimo ay tahay, haddii janano ay tahay, haddii dhalinyaranimo ay tahay, haddii diin ay tahay iyo haddii maadi ay tahayba, intaas waad haysataan ayuu yiri Laftagareen. fariintaanse waxaa loo fasiray in Laftagareen uu keenay wax kasta oo saaxiibadiisa ay baarlamaanka ku soo dareen. Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen oo saaxiib dhow la ah madaxweyne Farmaajo ayaa la fahansan yahay inuu kula dardaarmay xubnihii ka soo baxay maamulkiisa in codkooda meel kale aysan geynin, isla markaana uu ka codsaday in codkooda ay ku taageeraan madaxweynaha muddaxileedkiisu dhammaaday Maxamed Cabdulaahi Farmaajo. ugu dambeyntiina Sambaloshe waxa uu wajahayaa culays aad u xoogan oo villada uga imaanaya, iyadoo musharaxii hore ay u wadatay villa Soomaaliya uu iscasilay. loolan adag ayuu wajahayaa kursiga Hope Eber 58 oo beesha Cali madaxweyne ee Xawaadlo ay leedahay. 10 musharax oo ay ku jiraan madaxweynihii hore ee Hirshabelle Cali Cabdulaahi Cosoble iyo taliyihii hore ee NISA Cabdulaahi Sambaloshe ayaa ka mid ah xubnaha u taagan qabashada kursigan. Nuur Ido Bayle oo horey ugu fadhiyay kursigan ayaa shaaciyay in uu isaga haray tartanka kadib markii loo soo saaray liiska guddiga soo xulaya ergada dooranaysa kursigaas, iyadoo rajo xumo uu ka muujiyay Nuur oo villa Soomaaliya ay wadatay in doorashada uu ku soo baxo. tartanka kursigan oo ah mid furan ayaa xiise gaara u yeelaya doorashada, iyadoo musharaxiinta u taagan intooda badan ay yihiin rag miisaan ku leh siyaasadda Soomaaliya. haddaba waxaa jira musharax cusub oo isa soo sharaxay islamarkaana muujinaya inuu yahay nin doonaya inuu wax ka qabto arrintan, islamarkaana kursiga uu ku guulaysto. laakiin dadka qaar ayaa u arka in Sambaloshe maadaama Bayle uu isaga haray uu isagu qarka u saaran yahay ku guulaysiga kursigan. guud ahaan waa naga intaa tabinteena wararka Soomaalida iyo caalamka Haga Media ayaad ka daawanayseen. muuqaalkan haddii aad dhamaysatay la sii wadaag asxaabtaada kale. mahadsanid.